Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, my dear students. This is Malam Muhammad from Grand Online Academy. Welcome to our lesson for today. Today we have a new lesson, my dear students, which is on basically page 15. Page 15. Kusoo dhawaada casharkeena maanta ardayda qaaliga waxaan qaadan doonaa bogga 15aad ee boggeena grammarka insha Allah tacaala waxaanan qaadan doonaa cashar cusub. Okay. Articles casharkeenan maanta wuxuu ku saabsan yahay articles. Marka articles waa saddexdaa xaraf weeyaan. Waa a, an iyo the. A, an iyo the. Saddexdaas baa loo yaqaanaa erey. Articles saddexdaa erey baa loo yaqaanaa articles. Marka articlesku waxay sifeeyaan magac sida sifada oo kale. Adjectiveku wuxuu sifeeyaa magac. Articleskuna waxay sifeeyaan magac. insha Allah tacaala ayaynu baran doonaa saddexdaa iyo isticmaaladooda. And let's get started. aynu bilowno. Okay. I'm going to eat an apple. I'm going to eat an apple. aniga waxaan cunayaa tufaax. Okay. I'm going to eat the green apple. I'm going to eat the green apple. aniga waxaan cunayaa tufaaxa akhtarka. halkaa kalaro kala duwan bay leeyihin tufaaxu. waa casaan, akhtar iyo huruud. saddexdaa kale. Okay. Red, green, yellow. Red, green, yellow. saddexdaa kalaro waa casaan, akhtar iyo huruud. marka imika waxaa lagu markan tufaax baan cunayaa. maxaad ka fahantaa halkaa? tufaaxu kalarkiisa maad garanaysaa? maya. waxaad u garan weyday an baa ku jirtaa. macnaheedu an waxaa lala isticmaalaa so basically waa maxay wixii aan la garanayn. marka ruleskana waan eegi doonaa insha Allah tacaala. ruleka waan eeginaa. Okay. waxaana sidoo kale raaciyaa wax ku bilaabma vowels. waxaanu garanaynaa waxa weeyaan alphabets waxaa loo qaybiyaa laba. vowels waa shibanayaal oo ah a, o, u, e. a, o, u, e. shantaasaa la idhahdaa. marka halkaan idinku qoro. waa a, o, u, okay, I iyo e. shantaasaa loo yaqaanaa shibanayaal. shibane. shantaas waa shibanayaasha. waa vowels. inta kasoo hadhayna waa consonants. waa b, okay, c, d. kuwaas waxaa loo yaqaanaa consonants. marka haddii uu shantaa mid ka mida ku bilaabmo oo uu singular yahay waa mufradada unbaad an raacinaysaa. iminka apple maxay ku bilaabantay? waa a, an apple. Okay. I'm going to eat the green apple. iminka da ba la socotaa. da'da waxaa loo isticmaalaa definite wixii la garanayo. marka insha Allah tacaala in casharka usii soconno. Okay. let's carry on. xaggan markaa liis baa inoogu yaala. waa a iyo an. a iyo an labada waxaa loo yaqaanaa waa indefinite article. waxaa loo isticmaalaa wixii aan la isla garanayn. labada maxaa loo isticmaalaa wixii aan la isla garanayn laakiin iyaga laftirkooga kala duwan. an waxaan soo aragnay in lala isticmaalayo basically shantii aan halkaa idinku qoray. a, I, o, u, e. shantaa la odhanay shibanayaasha ayaa lala isticmaalaa an. a-na waxaa lala isticmaalaa consonants wixii ka soo hadhay. marka laakiin waxay ka midaysan yihiin labadooduba lama garanayo. lama garanayo wax la isla garanayo maha oo definite ah. waxayna ku kala duwan yihiin. tan a-da waxaa lala isticmaalaa consonants. shaqalada waa b, c, d, f. kuwaasaa lala isticmaalaa. an waxaa lala isticmaalayaa vowels shibanayaasha. shantii xabeen halkaa ku qoray. a, o, e, I, okay, u. shantaasaa lala isticmaalaya. general caadi ahaan waa one of many ayaa lala isticmaalaya. I want to buy a car. I want to buy a car. imka car maxay ku bilaabantay? c. ma shaqal baa mise waa shibane? waa shaqal. waa consonant. maxaa la raaciyay? a. okay. He's eating an apple. He's eating an apple. wuxuu cunayaa tufaax. apple maxay ku bilaabantay? vowel shibane. maxaa la raaciyay? an. laakiin labadoodu wax la garanaya maaha. I want to buy a car. gaari baan doonaya in iibsado. gaarigaasi noocu yahay lama garanayo. ma gaari weynba ma gaari yarba ma garan karno. waayo a an wax la garanaya maaha. okay. Do you have a bike? Do you have a bike? marka bike waa baaskilada. miyaad haysataa baaskilad? a, bike. b bay ku bilaabantay. waa consonant. She is an old woman. She is an old
woman she is an old woman iyadu waa gabadh da-deedu weyn tahay waa gabadh gabowday weeyaan marka waa islaan weeyaan ama waa cajuusadoo kale old maxay ku bilaabantahay o marka o waa maxay waa vowel maxaa lala isticmaalaya an okay I'm reading a book I'm reading a book anigu waxaan akhrinayaa book waa book muxuu ku bilaabmay b ama b waana consonant maxaa lala isticmaalay a halkaa qod intaana ka gudbo waxaan ku yidhi a iyo n waxay ka midaysan yihiin labadoodaba waxaa loo isticmaalaa waxaan la isla garanayn waxaana lagu daraa magacyada kelikelida ah wuxuu hadduu jamc yahay lalama isticmaalaba a iyo antona labadaa midna ku arki maysid haddii halkaas s ku jirto ay cars tahay gawaari badan aydaas lalama isticmaalayo laakiin hadday singular mid keliya tahay waa lala isticmaalaya apple waa hal tufaaxa haddii s lagu daro apples tufaaxyo anta lalama isticmaalayo okay marka waxay ku midaysan yihiin labadoodaba la islama garanayo waxaana lala isticmaalaa singular nouns wixii mufrad ah okay maxay ku kala duwan waa hal shay midna waxaa lala isticmaalaa markaa shaqalayaasha consonants sida b c d f qaarna midda kalena waxaa lala isticmaalaa waa maxay waa vowels shantii aan idiin soo sheegay waa a o u e I shantaas la isticmaala taasina waa an ayaan haddaba da eegno da oo taa specific baa ku qoran okay waa wax la isla garanayo specific wax la garanayo weeyaan okay halkaa laakiin waa one halkaasina waa one waa singular Tokyo is the capital of Japan Tokyo waa caasimadda waddanka Japan waynu garanaa imika Tokyo da baa la socotaa The new Chinese restaurant is very good The new Chinese restaurant is very good waxaa lagu yihi makhaayadda cusub ee wax laga cuno ee Chinese-kii waa mid very good aada u wanaagsan The new Chinese restaurant makhaayadda cusub ee Chinese-ka ee cusub waa mid aada u wanaagsan is very good okay we like the blue car we like the blue car waanu jecelnahay gaadhiga midabkiisu yahay bluega uu yahay da baa la socota waa wax la garanayo gaadhigaad jecesha hadii lagu ihahdo which car do you like gaadhiga ayaad jeceshahay the blue car baad oranaysaa gaadhiga bluega maxaad ku garatay da baa la socota the girl gabadhu ama inantu in a red dress ee xidhan dharka marka casaanka red dress waa dhar cas weeyaan is beautiful way qurux badan tahay haddii lagu ihahdo which girl is beautiful gabadhee qurux badan waxaad oranaysaa the girl in a red dress gabadha dharka inanta dharka cas xiran is beautiful waa gabadh qurux badan gabadhaas waa mid la isla garanayo oo maxaad ku garatay da baa la socota da'na maxaa loo isticmaalaa specific wax la garanayo I'm reading the new book I'm reading the new book by J.K. Rowling waxaan akhrinayaa anigu buugga cusub ee uu qoray J.K. Rowling ninka la yidhahdo J.K. Rowling okay labada inaad ila fahanteen baa filaya my dear students haddii marka aynu sii gudubno casharkeena aynu kusii soconno okay waa basically waa marka waa bogga 15aad articleska maynu sii wadanaa use an baa lagu isticmaal an if the word starts with the sound of shantaa mid ka mid haddii ku bilaamato oo loo yaqaano vowels maxaad la isticmaalaysaa an waniga hore usoo baranay an apple an egg an ice cream shop an open door an umbrella an hour intaas waxay ku bilaabmeen waa shantaa mid ka mid a mid waxay ku bilaabantay waa a e I o u tana h bay ku bilaabantay oo macalin tani kumay bilaabin mid kuwan ka mid eh maxaa an loo raaciyey sound dhawaaqeeda h-da waa lama akhrinayo maxaa lagu yidhi the h is silent marka halkee laga bilaabaya dhawaaq awi buu ka bilaabmaya h-da lama akhrinayo maxaa lagu dhawaaqaya an hour maaha saacadda waa hour sida awgeed baa marka loo raaciyey marka dhawaaqa xukumaya ayaan u gudubna a use u isticmaal baa lagu yidhi a if the word starts with the sound of any other sound haddii ay ku dhammaato wixii ka harsan shantaa midhan soo aragnay shantaa wixii ka reeban waxaa loo yaqaanaa shaqalayaal waa b c d f j kuwaas waxaa loo isticmaalayaa a ball maxay ku bilaabantay b a jacket j bay ku bilaabantay a hat
h bay ku bilaamatay a tree t bay ku bilaamatay a uniform oo macalin u soota macalin raacinaya kuwa vowelska may dhawaaqun baa la eegaya dhawaaqa xukumaya ya bay lagu dhawaaqaya asin ya sida waxa lagu dhawaaqaya ya oo kale a uniform a water bottle a yellow shirt dhammaan kuwa ku bilaama consonantska waxaa la raacinayaa waa a iyo kuwa markaa sida loogu dhawaaqayo consonantka sida u iyo kale waxaa lagu yidhi do not use ha isticmaalin the with countries or cities labada una la isticmaalo wadamada lama raacay haddaad tirahdo the Somaliland waa khalad the Hargeysa waa khalad okay the Muqdisho waa khalad okay kuwa lama isticmaalayo I live in the China haddaad tirahdo waa khalad laakiin maxaad oranaysaa I live in China da lama raacinayo I live in China waa kaa do not use the hala isticmaalin baa lagu yidhi the with things in general sida waxyaalaha caadiga ah isticmaal she likes the pizza odhan maxaad oranaysaa da'da ka reeb she likes pizza she likes the pizza from Tony's restaurant sawaad oran kartaa waxaa sii raacsan markaa Tony's restaurant oo wax la garanayaa the pizza waxaa jecesha pizzada from lagu sameeyo Tony's restaurant ama laga keeno Tony's restaurant hudheelka Ton uu iska leeyahay iminka Tony's waa lahaanshiyo waa possessive noun waa nigi soo aragnay nounka possessive noun maxaa la sameynayay dhibicdaa sare s baa la israacinayay that's it for today ardaydeeda qaaliga waxaan soo barnay artikalada a an iyo da a waxaa lala isticmaalaa wixii ku bilaabma consonant ayaa lala isticmaalaya sidoo kale oo singular ah one an waxaa lala isticmaalaya wixii vowels ku bilaabma shibanayaasha okay oo keli ah da'na waxaa lala isticmaalaya specific nouns or pronouns wixii la garanayo ee lasla garanayo okay haddaan ku idhahdo the teacher macalinka waa macalin isla garanayo that's it for today my dear students assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh